kulankani oo ah kulan sanadkiiba hal mar la qabto ayaa waxa uu ahaa mid ay isku xog wareysanayeen hay'adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka ee Islaamiga ah iyo kuwa dawladda Soomaaliland waxaana soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta qaranka oo kaashanaysa dalladda ay ku midoobeen ururada hay'adaha Islaamiga ah ee samafalka ee ka shaqeeya gudaha Soomaaliland kulankaas oo ay ka qayb galeen wasiirada wasaaradaha qorsheynta deegaanka shaqada iyo arrimaha bulshada iyo mas'uuliyiin kale oo dawladda ka tirsan ayaa ugu horreynba waxa halkaasi hadalka iska daba qaatay wasiiradii iyo mas'uuliyiintii kale ee ka socday hay'adaha samafalka waxaana ka warameen muhiimadda kulankani leeyahay shirkan qiimaha badan ee soo afmeeraya sanadkii 2018 aan ku soo bandhigayno iskuna fahmayno wasaaradda qorsheynta qaranka iyo dhammaan hay'adaha dawliga ee ay shaqooyinka hay'aduhu qabtaan xuseeyaan runtii ciddii ka shaqaysay oo ay kow ka tahay wasaaradda shaqaalaha wasaaradda qorsheynta qaranka waxaan u malaynayaa hay'adaha Islaamiga ah hay'ado ka shaqo badan inaanay dalka jirin runtii anigu waan aaminsanahay waxaan ahay qof aaminsan hay'adaha Islaamigu inay wax qabtaan laakiin haddana information sharing iyo sidii xiriirka maaragtay dawladda ay wada lahaayeen hay'aduhu ayaa aad iyo aad waxa ka muuqda gaab baa ka muuqda ama weaknesses badan baa ka muuqda waxaan idinka codsanayaa marka hore in aydun maadaama oo aad samafalada ka shaqaysaan wasaaradda wixii shaqadeeda iyada ah aad xiriir kala yeelataan kalana shaqaysaan idinkuna waxay idintiin dadkii ka shaqeynaya arrimaha samafalka bani aadamnimada gurmadka iyo daryeelidda dadyowga nugul marka runtii qaranka qiimo weyn ayaduna ugu fadhidaan xukuumaduna runtii dadaal badan waxay gelinaysaa sidii la idin siin lahaa sidoo khadar sheegay askar jawigii ay idinku shaqayn lahaydeen oo ah jawi nabdoon geestooda agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta Cabdirashiid Sheekh Cabdiraxmaan iyo wasiirka wasaaraddaasi Cawaale Ibraahim Shirwac oo iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay waxay sheegeen in kulamada noocan ah ka wasaaradahan ay dardar gelin doonaan ujeedada shirkan aanu qabanay markaa waxa weeye inaanu aynu wax isweydiino wax iska weydiino howlaha aad waddanka u haysaan waxqabadkiina in xogtiina la helo inaan sidoo kale caqabadaha ay haysta aan wax kala qabanno kuwa dawlad ahaan aan wadana aragno inaanu dila wadaagno oo aynu sheekaysi iyo xog isweydaarsi aynu yeelano runtii waxaan kaloo doonayaa xuso oo madasha la fadhiya xubno ka socda ururka islaamka oo iyagana soo dhaweynayo OIC idinku wax ka shaqaysaan role ah inaad wax qabataan annaguna waxaan ka shaqaynaa wixii aad qabanaysaan ama dadka kale qabanayaan dawladdu ka qabanayso inaanu isku dubaridno coordinate gareyno inay naga go'an tahay inaanu 5 sano marka la gaaro electionka koowaad in dawladdan wax la taaban kara qabato dawlad kastoo ina dhaaftay waxbay qabatay laakiin dawladdan waxa ka go'an oo halka marxaati idinka sheegaya in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Muuse Biixi Cabdi wasiir kasta mandate-kii wasaaraddiisa uu siiyay uu yiri waa kula xisaabtamaya sanadka bacdi waxaad qabato waa Idris Bershiya telefishinka Universal Hargeysa